السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay filim Japanese ah oo ka hadlayo beer caruur lagu koriyo si shaydaanka loogu quudiyo daawo oo iska taxadar. Filimka wuxuu ku bilaabanayaa gabar 12 sano jir ah oo lagu magacaabo Emma oo soo kacday. Sidoo kalena waxay soo kicisay caruur kale oo ay isku meel jiifeen oo ay ku wada noolaayeen beerta caruurta lagu xanaaneeyo. waxaana mas'uul ka ah naag lagu magacaabo Isabella. inkastoo aysan hooyadood ahayn laakiin caruurta waxay ugu magacaabaan hooyo, waxayna u wada nool yihiin sidii qoys oo kale. Emma waa mid subax walba soo kiciso caruurta inteeda kale, kadibna way quraacdaan, kadibna waxay aadaan fasalka si ay wax u bartaan. Emma iyo labadeed saaxiib ee kale, Norman iyo Ray, waa kuwo kaalmaha ugu horeeya ka galo iskoolka. caruurta sidoo kale waxaa qoorta ugu dhegsan number tattoo ah. wax aqoon ahna kama haystaan adduunka kale. xarunta waxaa ku hareeraysan meel beer ah oo ay caruurta ku cayaaraan, laakiin saasay tahay looma ogola inay ka baxaan gidaarka. caruurta ayagoo dhan waxay yimaadaan meesha xanaanada ayagoo sakhiira ah, laakiin ma sii joogaan inta cimrigooda ka dhiman. waxaana loo diyaariyaa in ay qoys kala korsadaan halkaasi oo ay adduunka kala aadaan. maalin maalmaha ka mid ah, gabar yar oo lagu magacaabo Connie ayaa waxa ay ka tagtay meesha xanaanada ah. caruurta kale ayaa macsalaameeyeen, waxayna u sheegeen in qoyskeeda cusub ay wanaajiso. Isabella ayaa u dhaqaajisay gabadhii Connie ahaa iridda. sidoo kale Emma waxay heshay toygii ay wadatay gabadhii yareed ee Connie ahayd. ayada iyo Normi ayaa isoo raaceen si ay u ka dabageeyaan gabadhii yareed. marka ay soo gaareen iridda albaabka, waxay ogaadeen in ay ka gudbeen, waxayna go'aansadeen in ay soo eegaan waxa gidaarkan ka dambeeyo. waxayna arkeen gabadhii yareed ee Connie ahaa oo dhulka jiifto ayada oo geed ka dul taagan yahay. waxayna arkeen laba ibliis ah oo dhankooda u soo socdo, gaariga hoostiisana ayay dhex galeen. labadii ibliis ayaa waxay ka wada hadleen in hilibka insaanka uu macaan yahay, taasi oo amankaab ku noqotay Emma iyo Norman. waxayna ogaadeen xaruntan inay tahay sidii beer lo oo kale si ibliiska loogu quudiyo. ibliiskana wuxuu doorbidaa hilibka caruurta aqliga leh. Isabella ayaa ibliiska u sheegtay in Emma iyo Norman ay yihiin kuwa ugu aqliga badan iskoolka, waxayna u ballan qaaday in caruurta ugu aqliga badan ay u keeni doonto ibliiska. Emma iyo Norman ayaa meeshii ka soo cararay. Emma ayaa dhulka ku dhacday ayadoo aamin weysay waxay indhaheeda ku soo aragtay. Norman wuxuu isku dayay in uu dejiyo, wuxuuna u sheegay in ay meesha ka baxsan karaan, laakiin Emma waxay ka walwalsan tahay caruurta kale haddii ay baxsadaan xaalkooda sida ay noqon karaan. maalintii xigtay, Emma iyo Norman waxay ka wada hadleen waxay sale soo arkeen, waxayna ka wada hadleen sida ay u baxsan lahaayeen. waxay ka boodeen gidaarkii si ay u arkaan waxa ka dambeeyo. markay cabaarba socdeenba, waxaa ka hor yimid derbi weyn, halkaasi oo aysan awoodin in ay ka gudbaan. dibna ayay usoo laabteen. dhanka kale, waxaa beertii ku lumay gabar lagu magacaabo Nayla. Isabella ayaa ka egtay saacadda, waxayna soo heshay Nayla durbadiiba. dhanka kale, Emma iyo Norma waxay ogaadeen in saacadda in uu GPS ku xiran yahay, halkaasi oo lagu ogaan karo cunug walba meesha uu joogo. maalintii xigtay, Norman iyo Emma waxay aadeen dhankaas iyo jikhda, xarigna way diyaarsadeen si ay derbiga uga boodaan. durbadiiba waxaa arkay saaxiibkooda Raj, kaas oo ka shakiyay. Norman ayaa u sheegay Raj xaqiiqada taal meeshan xarunta ah. durbadiiba Ray waa uu aaminay, waxa uuna u sheegay inay meesha ka baxsan, laakiin Emma ayaa tiri kama tageeno kuwa kale. maalintii xigtay, Isabella ayaa waxay ardayda bartay macluumaad cusub oo lagu magacaabo Cron. imaanshaha Cron ayaa waxay sii adkaysay in ay kooxdii baxsadaan. kadibna waxaynu aragnaa Isabella iyo Cron halkaas oo Isabella u sheegtay in Emma, Norman iyo Ray ay la socdaan xaaladda xaruntan, laakiin waxay tiri waan ku kalsoonahay inaysan baxsan karin. Norman wuxuu aaminay in mid ka mid ah saddexdooda uu jaajuus u yahay Isabella, qorshayaashoodana oo dhan uu u sheegayo. Norman ayaa wuxuu soo dejiyay qorshe uu ku ogaanayo jaajuuska ku dhex jiro. maalintii xigtay,
Norman ayaa wuxuu ogaaday in saaxiibkooda Ray uu yahay kan jaajuuska ah, waxaana uu u sheegay in shabaqii uu dhigay uu ku soo dhacay. Ray ayaa wuxuu qirtay in uu asaga jaajuuska yahay, waxa uuna u sheegay in xaqiiqada xaruntani uu isigana sidoo kale uu mar hore ogaaday, wuxuuna aaminay in uusan ka baxsan karin xaruntan. taa beddelkeeda Isabella ayaa u ballan qaaday in ay dibdhig doonto in la siiyo ibliiska, taasi oo Norman u xaqiijisay in Ray uu yahay saaxiib lagu kalsoonaan karo. Ray ayaa wuxuu u sheegay inuu asaga yahay midka xaday toygii gabadhii yareed ee Connie, si labadood ay u ogaadaan xaaladda dhabta ah ee ka jirto xaruntani. Norman ayaa aaminay ninkii Ray ahaa. Maalintii xigtay, Ray ayaa Isabella u sheegay in Norman uu isku dayayo in uu cunadeeda sumeeyo. Isabella ayaa u mahadcelisay, waxayna u sheegtay Ray waqtigii ibliiska la sii lahaa in uu soo dhawaaday. Maalintii xigtay, carruurtii oo ka wada sheekaysanayaan qorshihii ay ku bixi lahaayeen xaruntani ayaa waxaa dul yimid Coron, halkii ahayd in ay Isabella ku dacweyso. Coron ayaa sidoo kale kusoo biirtay, waxayna u sheegtay in ayada hataa ay ardayd meeshan ka tahay sida ayaga oo kale. Maalintii xigtay, gurigeeda ayuu ku balamisay, waxayna u sheegtay qorshayaashii oo dhan, ayadoo ku tiri 1000 sano ka hor ibliiska iyo insaanka ayaa waxay ku wada jireen dagaal. Marka ay iyaan isdagaalayeenbe, waxay gaareen heshiis kaasi oo lagu magacaabo Cahdigii Weynaa, taasi oo ah in ibliiska iyo insaanka ay ku kala noolaadaan laba caalam oo kala duwan, halka insaanka qaar looga tegay caalamkii ibliiska ahaa. taasi ay noqotay in la geeyo beer si ibliiska uu u cuno, asagoo aaminsan in hilibka insaanka uu awood dheeri ah kusoo kordhinayo. Maalintii xigtay, Isabella ayaa ku burisay Coron, waxayna ogaatay qorshaheeda, waxaana la siiyey ibliiska si uu u cuno, maadaama ay isku dayday in ay carruurta ka caawiso in ay meesha ka baxsadaan. Maalintii xigtay, Emma iyo Norman waxay aadeen dhankaas iyo derbiga, halka Ray uu mashquulinayay Isabella. laakiin Isabella ayaa qorshe ku fahamtay, waxayna ku xirtay meel qol ah, waxayna u go'aansatay in ay soo qabato Emma iyo Norman, waxayna u sheegtay in ay meeshan ka baxsan karin. Emma ayaa isku dayday in ay Isabella joojiso, laakiin lugtii ayay ka jabtay, waxayna Emma u sheegtay in ay beri tahay maalinta ku dambeysa nolosheeda. Habeenkii marka uu qof walba seexday, Norman ayaa wuxuu arkay qalinkaasi oo ay Coron meesha dhigtay si ay carruurta ku baxsadaan xaruntan. Maalintii xigtay, Norman ayaa wuxuu koray derbigii asagoo xarig adeegsanayo, halkaasi oo ka hor imaaday meel god weyn ah uusan ka baxsan karin. Dibna ayuu ku soo laabatay xaruntii, wuxuuna aqbalay geeri iyo in lagu quudiyo ibliiska. Kooxdii ayaa waxay macsalaameeyeen. Isabella ayaa ugu dambeyntii waday Norman, waxayna ogeysay ninkii ayaa u sheegay inuu yahay ninka ka mas'uulka ah xaruntani, si ay u wada hadlayeenbe. Ibliiska ayaa gadaashooda ka soo baxay, kaasi oo isku diyaarinayo inuu cuno. Bilaha xiga waxaynu arkaynaa Emma oo kasoo kabsanayso dhaawaceeda lugta kasoo gaaray. Ayada iyo Ray waxaa soo wajahday quus, waxayna hilmaameen qorshahooda ahaa inay ka baxsadaan xaruntani. Isabella waxay ku faraxsan tahay in ay carruurtani baxsan karin. 2 bilood kadib, waxaa la gaaray waqtigii Ray loo geyn lahaa ibliiska. Habeenkii ka horeeyay, Emma ayaa soo booqatay, waxayna ku qancisay in ay weli fursad haystaan ay ku baxsadaan. Rayna wuxuu go'aansaday in uu dab isqabadsiiyo asaga iyo gurigaba. Emma ayaa waxay u wacday Isabella. Isabella waxay ku amartay carruurta in ay ka baxsadaan dabka. Cabaar kadib, waxay garwaaqsatay in ay carruurtii ka baxsadeen meesha, waxaana soo baxay in uu kan ahaa qorshahooda. Laakiin arrintan waa mid ay qorsheynayeen 2 bilood ee ugu dambeysay. Ray wuxuu ahaa mid ku qancinayay carruurta qorshihiisa ahaa inay baxsadaan, waa uuna u diyaariyey. Emma uma aysan sheegi karin Ray, sababtoona waxay tahay in Isabella ay kor ka daawanaysay. Carruurtii ayaa derbiga korayo. Isabella ayaa waxay isku dayday in ay saacaddii ku raadiso carruurtii, waxayna ogaatay in carruurtii ay GPS-kii dhegahooda ku jiray ay iska saareen. Kadib markii carruurtii oo dhan ay meesha sare fuuleen, Emma ayaa noqotay qofka ku dambeeyo ee meesha ku soo haray. Laakiin inta aysan meesha ka daadegin, waxaa soo gaaray Isabella.
waxayna ugu hanjabtay in ay xariga jar doonto, aysan u suurtageli doonin in ay xagga sare u gudubto. Emma ayaa qoshishay, waxayna Isabella u sheegtay in aysan ayada carruurta yar dilin. Isabella waxay rabtaa carruurtii weynaadeen, wayna ku faraxsan tahay carruurta inay ka baxsadaan xaruntaani. Emma ayaa khatartii u bareeray, waxa uuna ka daandegay xarigii. Isabellana waxay isku dayday in ay xariga jarto, laakiin arrinta yaabka leh ee dhacday ayaa ah in aysan Isabella xarigii jarin, waxayna ku faraxsan tahay carruurtii ay soo korisay in ay ka baxsadaan xaruntaani. Carruurtii ayaa ka gudbeen gidaarkii, waxayna dhex mareen jiqdii. Marka ay duurkii ku socdeenba carruurtii waxay garan waayeen waddadii ay ku baxsan lahaayeen. Kadibna Emma ayaa soo qaaday qalinkii ay Caron meesha ku dhigtay. Qalinka ayaa wuxuu soo saarayaa iftiin kaas oo ku hagayo meesha badbaadada ah. Ugu dambeyntii Isabella ayaa waxay hor istaagtay maamulka xaruntaani, kuwaasi oo meeshan mas'uulka ah, waxayna ka xanaaqeen in Isabella ay awoodi kari weysay in carruurtan ay meesha ku hayso. Ugu dambeyntiina waxaa lagu quudiyey ibliiskii. Filinkana meeshaas ayuu ku dhammaaday.